calaamadaha beenlowga waxaa halkan kugu soo gudbinaya 14 qodob oo si fudud ugu ogaan karto qofka beenlowga ah inta aanan muuqaalkan ugu dagalin waxaan idinka codsanaynaa inaad YouTube-keena walaalka show subscribe dhahdaan sidoo kalena aad muuqaalkan like saartaan asxaabta kalena aad u share gareysaan sida ay qabaan qaar kamid ah culimada cilmu nafsiga calaamadaha beenlowga waxaa kamid ah 1 indhaha oo uu ka mirigmirigsiyo qofka beenta sheegayahay waxa ku adag inuu indhihiisa ku hayo hal meel oo kaliya taas oo keenaysa in uu geesaha kor iyo hoos eego 2 hal meel eegid qaar kamid ah beenaalayaasha iyaga oo ka baqaya in lagu fahmo ayay meel eegaan ama hal meel oo kaliya fiiriyaan waliba iyagoo si aan libiqsi lahayn ugu haya indhahooda meeshaasi 3 iljabinta qaar kamid ah beenaalayaasha ayaa sameeya sidan taas ayaana ka dhalata maskaxdooda qaybta qaabilsan hadalka oo diidaysa waxa uu beenaaluhu afka ka sheegayo badankoodna mararka qaar ay sameeyaan arintan 4 heerka codadka qaar kamid ah beenaalayaasha ayaa waxay adeegsadaan heerar kala duwan oo sabaynta codadka ah iyagoo ay ku adag tahay inay adeegsadaan hal heer oo codad ah 5 dhaqdhaqaaqa gacmaha marka uu qofka beenlowga isku diyaarinayo inuu rido been weyn waxa laga garan karaa gacmihiisa oo aan ku sugnaan karin hal xaalad oo kaliya oo macna leh sida inuu gacmihiisa firdhiyo ama uu hoos geliyo lugihiisa 6 maqaarka markaan qofka beenlowga dareenkiisa neerfaha oo kaca darteed ayuu maqaarkiisu muujiyaa midab kale sida inuu noqdo jaalle ama guduud xigeen 7 qaabka hadalka daraasadu waxa ay muujinaysaa in qofka beenta sheegayahay uu sameeyo badanaa hadallo badan oo tarorog ah isaga oo aan warba u hayn 8 hakasho iyo go'go badan maadaama qofka beenta sheegayahay uu sameeyo sheeko aan sal iyo raad toona lahayn ayaa waxa hadalkiisa ku yimaada hakasho iyo go'go uusan isagu ugu talagelin 9 gacmaha oo uu jeebka gashto waa calaamad weyn oo ay leeyihiin dadka beenaalayaasha ah sababta ugu weyn ee ku kalifaysa ayaana ah inuu qofku ku qarinayo dhaqdhaqaaqiisa iyo qalqalkiisa intaba 10 inuu eego dhankiisa bidix waxa ay ka mid tahay dhaqamada ay leeyihiin beenaalayaasha maxaa yeelay waxa la xaqiijiyay in qofka runsheega ah uu badanaa eego dhankiisa midig marka uu hadlayo 11 candhuuf laqid badan maadaama qofka beenta sheegayahay uu jirkiisa ku imaanayo qalqal badan habka shaqada jirka darteed ayuu beenaaluhu iska raadinayaa candhuuf si uu u laqo dhuuntana uu ugu qoysto 12 xogxogasho waa astaan kale oo ay leeyihiin kuwa beenta sheega gaar ahaanna waxa ay xogtaan madaxa maadaama ay maskaxdu aysan ogolaaneyn beenta uu qofku sheegayo 13 wajiga culimada cilmu nafsigu waxa ay soo ogaadeen in wajigu uu yahay shaashad muujin karta beenta beenaalaha sida in ay weynaadaan daloolada sanka maadaama qofka beenta sheegayahay uu u baahan yahay xad badan oo hawo ah 14 dhaqdhaqaaqa macna la'aanta ah waxa ay muujinaysaa dhaqdhaqaaqyo aan isku toosnayn sida in uu beenlowgu nuuxnuuxiyo garbaha iyo sunniyaha isagoo u muuqanaya sida qof ciyaaraya beentu waa xaraan sharaf dhac mana ahan wax uu ku dhiirado qof sharaf leh haddii aad nagu cusub tahay follow barteena TikTok-ga sidoo kalena Instagram-ka soo raac oo follow muuqaalkana ha ilaawin in asxaabtaada kale u share gareyso mahadsanid